Muuqaalkeena maanta waa xaggaas iyo dalka Ciraaq. Dhacdo la yaab badan oo ku cibro qaadasho mudan. Qofna uusan maleynaynin in ay heerkaas ama taariikh intaas la eg ay ku soo dhamaan doonto. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Waxa ay ka dhacday gobol ka tirsan dalka Ciraaq. Waxaa jiray oday ama nin xoogoo da'da kontomeyada ah ku jiro reer leh oo ilmo ay u joogaan ilmo yaryar oo asaga walaaladii yaraankii aabihii ahaana korihay oo agooma ah ay guriga ugu sugayaan nolol iyo biil iyo waxbarashana laga sugayo asagana aan lacag fiican ama shaqo fiican aanan haysan oo wuxuu ka shaqayn jiray meel oo lagu gado qudaarta dukaan yar oo aanan weynin qudaarta lagu gado ayuu ka biilaa ilmihiisii kuwa asaga la dhashayna agoonta hayeen iyo waxbarashadoodii iyo noloshoodii intaba ka dabarayay waxa uu ahaa aaba wanaagsan reerkiisii gurigiisina laga jecel yahay habeen walbana markii uu guriga u soo yahayo ama uu xilliga habeenkii uu guriga imaanayo hor uu soo qaado ilmaha waxyaalo ay iska cunaan sida qudaarta kale waxaa dhacdo dadka qudaarta gado in qudaartii qaar ay halaawdo oo dadkii aysan ka gadanaynin halkii uu ka tuuri lahaa gurigiisii ilmihiisii u keenay jiray iska cuni jireen wuxuu ahaa aaba markii uu guriga imaanayo galabkii lagu farxo oo ilmaha iyo intii guriga joogtaba imaantinkiisa ay ku farxaan dadka dariska ahna ay jecel yihiin oo qof wanaagsan oo laga nabad gala ah noloshooda sidii u socotay maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday odaygii asagoo hooyaad ah oo gurigiisii u socdo ayuu galay shil waa uuna ku geeriyooday reerkii waxaa loo geeyay odayga meydkoodii ilmihii iyo xaaskii iyo walaaladii intiiba waxay ka qaadeen niyad jab way niyad jabeen waxa ay ka fikireen mustaqbalkooda halka uu ku dambeey doono maadaama ilmihii ay yaryar yihiin kuwii asaga la dhashay iyo kuwiisii wax qaangaar ah aysan jirin hooyadiina ay ilmo qaangaar aanan wax ku jirin ay koris ay ka sugayaan iskuul iyo waxbarasho iyo kulli lagu jiro murug aad u xoogan ayaa reerkii la soo daristay waxay samaysay wiilkeeda curadka ah wuxuu u jiray markaas da'da adiga maxaa la yiraahdaa 15 sano laakiin qaangaar xagga sharciga dawladda muusan ahayn oo 18 sano ayuu ku qaangaar muusan gaarin oo wuxuu jiray 15 sano waxay samaysay iskuulkii ka saartay xal kale ma lahan waxa u baahan tahay qof u soo shaqeeyo oo nolosha ilmihii intay kala la dabaro guriga ay degan yihiin waa guri uu aabahood lahaa oo aanan kira ahayn wiilkeedii curadka ah 15 jirka ah iskuulkii ka saartay meeshii aabaha ka shaqayn jiray ayay geysay intii ka shaqeey oo biilkeena xaggaas ka soo dhicay waa wiil yar oo 15 jir ah hore aan u soo shaqeynin khibradna aanan lahayn adiga ganacsigii aabihiis uu ka baxay waa galiyay wuuna ka shaqeeyay laakiin sidii aabaha wax u kala dibarayo uu kala dibari kariyo biilkii aabaha reerka keenay ma soo galin kariyo ganacsigiisa aabaha wadana ma wadi kariyo laakiin ugu yaraan reerkii ma hagaasin oo reerkii waa samata bixiyay 3 sano markuu reerkii u shaqeeyay oo 18 sano uu gaaray taariikhdan waxay dhacday 1965 ay ka dhacday Ciraaq xilligaas waxaa jirtay in qofka markuu 18 sano gaaro qasab lagu ciidameeyo oo 2 sano tababar ah galo wiilkii waxaa la dhahay 2 sano tababarkii uu galaa waana qasab ma ahan wax oo qofku asaga joys gareyn karo ma haduu rabo gali karo haduu kale hadii uu rabo inuu ka baaqan kara ma ahan wax qasabay dawladda qasbiisa hooyadii way ku qasbanaatay in cunugeedii la wado ciidankii lagu daray dukaankiina waa la xiray ilmaha kale ka yar wax soo gadi karo ama 15 sano soo gaaray xataa maysan ku jirin markaas oo lagu bedeli karo hooyadii waxay ku qasbanaatay in dukaanka xirto hadii dukaanka xirtay wiilkii curadka ahaana ciidankii looga qaaday nolosha reerkii way si adkaatay oo waxay noqotay culays kale ku dar hooyadii way baxday waxay raasatay lacag deen ah adiga bish ugu horeyso ay ilmihii noloshoodii ku sii dabarto marka waxaa jira sharci ah hadii qofku uu sarrabin in uu ciidan ka baaqdo wuxuu dhiibi jiray lacag qaraamad ah lacagtaas uu ku gadan jiray 2 sano tababarkii ciidannimada uu qasabka ku qaadan lahaa lacagtaas uu ku furan lahaa hooyadan wax dabarayay maysan lahayn wax caawihay maysan lahayn waxay ku qasbanaatay in wiilkeedii ay ka soo furato 2 sano qasabka ah liana 2 sano waxay ku gaaraan ilmaha iyo reerkii ma lahan
inay wiilkii labadiisii sano oo ciidanimada qasabka tababarka uu qaadan lahaa xariisnaan lahaa inay usoo gaday lacagtii dhiibta ay ku qasbanaateen si lacagtii u dhiibto waxay ku qasban tahay guriga ay deganaayeen inay beeciso oo ay gado marka waxay sameysay lacag yareyso deysatay oo bishaas ilmihii noloshoodii ay kasii dhigto dukaankeedii ayayna geysay maxaa la yiraahdaa suuqa way ina gadeen guriga ee dukaankii maahan guriga ay deganaayeen ayay gadeen gurigii markay gaday lacagtii bishii ay biisheen ayay ka dhiibtay oo waxay u geysay qofkii deynta ay kasoo qaadatay intii soo hartay waxa ay qorsheysay inay u geyso ay geyso xaruntii ciidanka ama xaruntii booliiska wiilkeeda uu ka diiwaan gashanaa si ay ula soo caalashaan wiilkeeda u ceshato marka gobolka wiilkeeda la geeyay iyo gobolka ayada ay degan tahay waa laba gobol oo is saaran laakiin ay u dhaxeeyaan dhul hawd ah oo bahalo iyo xayawaano iyo halistooda badan tahay ay ku nooshaan marka baabuurka hal qof iyo ma qaado adigu isla sugaa baabuurka xoogo 4 ilaa 5 qof inta isla gaaraan isla sugaa kadib safarkiisa galaa oo baxaa wadada marka la marayo labada gobol u dhaxeyso waxa ku yaalo tog weyn ku yaalo oo bahala galeen ah oo masaska iyo wax walba bahala galeen ayaa ku yaalo labada gobol inta u dhaxeysan waa halistooda badan xayawaano oo dad cunaha ay ku nool marka xilli galab ee tagtay bishiina way dhamaan rabtay marka waxa waaye hadii hal bil gudaheed lacagtaas ku geysid cungaadii ama qofkaadii waa soo ceshan kartaa ma la ciidamayhayo hadii laakiin ay 30 maalmood ku dhaafto ay bil xagga u dhaafto lacagtaada xataa waxba ku mugayso oo wiilkii waa la qaaday soo celin ma lahan marka maadaama qofkan qof hooyo ah qof caawiyaysan aysan lahayn ay ahayd adiga bil ayay ku qaadatay oo waxa u harsan 2 maalin ka harsan in wiilkeedii la soo celiyo 2 maalin hadii ku tagi weyso ma soo laabahay wiilkeedii waa daayay 2 sano soo jara kadib uu soo laabaha marka xilli galab ah ayay ku soo aaday in ay baxdo oo ay aado safarka si caaw ay u sii socoto bari subax ay u tagto meeshii ay u socotay markii meeshii ay tagtay waxa la baabuur baxay ma lahan saacadan xilli galab ah waaye dadba ma lahan hal qof kaligiisna gaar uma baxay 2 maalin ee wiilkeedii kaga dhiman in la qaado waa inay caawa baxdaa si ay bari subax u tagtaa oo lacagtii wixii ay u dhiibtaa habeen dambe wiilkeedii loogu soo celiyay ee ula soo laabato qorsheediisa saas ayuu ahaa laakiin qorshaha Ilaahay ayaa ka weyn adiga markii weysay nin taksiile ah waxay tiri walaalo culeysa jiro ilaa ina baxa caawo galabtadan waa ku qasbanahay waxay dhahday 4 qofood oo kala gaariga saaran lacagteeda aniga dhiibay ee wad ninkii wuxuu yiri okay hada 4 qofood oo kala lacagteeda dhiibaysid iyo adiga taada shantiina wuxuu dhahay gaariga waa ku kiciyaa waayii waa dhiibay ee gaarigii u kiciyaa markii adiga dhaxsii marayaan oo ninkii wanaagsanaa wuxuu yiri maxaa kugu qasbaayo in aad maxaa la yiraahdaa 4 qof lacagtoodii ay dhiibtid maxaa waa degdegta iyo culayska saas ay ku haysto waa iska miskiin hooyo culays haysto iska miskiin ah ninkii wax walba ay u sheegtay oo nolosheeda ahaa in ninkeedii dhintay wiilkeedii 3 sano oo caawiyay 3 sano kadibna 18 sano oo galay ciidankii ay qaateen inay ka soo ceshatay ay rabto ayna wado lacagtii wiilkeeda ay ku soo ceshan lahayd oo qaraamaadka dawladda ay ka rabtay inay wado guri ay degnaayeen ay beecis ay u sheegtay ninkii wuxuu ku naqday ximaar damaca gale wuxuu is dhahay islaantan kaligeed meesha ku saaran togii cidlada ahaana la maraayo bahla galeen ka ahaayeen ka waran uu yiri toga markii la gaaro hadaba naagta baaburka ka tuurto oo bahalkii toga ka tuurto meeshaas ay ku dhimatay adan lacagta ka qaadata ka waran ilmihii qaylihiiba maahe ninkii damaca duuna gale waa arki way naagtan iyo nolosha xanuunka badan ay kaga sheekaysay midna u muuqawiso lacagta u muuqatay ninkii markii adiga meeshii toga ku yiilay markii la gaaray gaariga istaajiyay naagtiina gaariga ka tuuray gaariga markuu ka tuuray wuxuu isku day markaa asaga inuu soo wareegsado oo helo meel uu ka gala toga naagta leena lacagta lagama qaadi karin hadii ay isjiidaan labadooda isla dhaca markuu ayada kaliya tuuro markay dhacdo oo siraado qofkii waaba dhimatay togas qof laga duro ma noolaato asaga inuu marka xeeladaysi u tartiib gadaal ka soo galo toga oo ayada lacagtii maadaama qofkii meesha ku dhacday ay dhimatay lacagtii tartiib ka qaato jidid la'aan sidii uu sameeyay islaantii togiyo ka tuuray ayadoo qaylihiisa oo dhahayso cungigan soo ceshan lahaa walaalo san ha ii sameeynin ha ii gelin tuur ninkii oo gadaal oo ka soo gala togi lacagtii oo tartiib ka qaatay
inay dhimato u maleeyaa ma dhiman oo qofkii waa jajabtay dhiigbax iyo ay ku jirtaa iyo xaalad xun laakiin waa ogaal beeshay asaga laakiin wuxuu kaga tegay dhimasho ajala loo dhintaa naagtii maysan dhiman lacagtii oo ka qaatay meeshii kuma laaban kariyo gobolkii ay ka imaadeen kuma laaban karo naagtiina waa la wey doonaa aakhir warkeeda uu soo bixi doonaa in naagtii la waayay marka hadduu meesha ku laabto shakiga asagoo kusoo laabaa wuxuu ku qasban yahay safarkii inuu dhammaystiro oo tago meeshii uu u socday safarkii uu dhammaystiray oo wuxuu tagay gobolkii markii horeba naagta oo gaariga oo usoo kiciyey ayuu tagay asagoo lacagtii wato naagtii inay dhimatana ahaana kaga tagay hoodkii iyo togii meeshii markuu tagay habeennimo waagi baryi rabo nimankii baabuurida waa weydiiyeen maxaa saacadan kusoo bixiyay baabuurida marka sharciga lahaayeen ma ahan sanadadan iyo waa 1965 sharciga marka xilligaas ka jira meeshii baabuurida u jiray waxay dhaheen maxaa saacadan kusoo waday waxay dhaheen ma sii taagnaahaysid waxa ku qasbanta dadka ugu horeey inay qadid sida ugu dhaqsiyaha badanna intuusan waagi baryin aa ku laabatid meeshii ka imaatay oo gobolka ka imaatay ku laabatid ninkii waa ogolaaday xikmad ilaahay ku jirto in baabuuridan ay shiraan ay dhahaan dadka ugu horeey inay qadid waa sida ugu dhaqsiyaha badan intuu waagi barin aa ku laabatid gobolkii ka imaatay waa xikmad ilaahay wax watay dadka ugu horeeyo soo saartay shanta qofood ugu horeysay adi safarkiisa ku soo laabteen ninkii waa nin wax oge wuxuu isiri tolama soo hubisid naagti tog ka toortay shalay soo hubi haday dhimatana waa kasdaysa dhimanna meesheedii ku sii dhamaystir markuu barti u ka tooro oo maraayo oo dadkii gaariga u saarnaayo wuxuu ku dhahay war meeshan igu suga togaan iyo meeshan wax yar ka fiiriha wax yar rabaa inaan meeshan ka soo fiiriyo ee gaariga meeshan igu sii suga sii taagnaada waa soo degaye togiyoo soo galiye wuxuu arkay naagtii oo nool weli nuxnuxsay hayso markuu arkuu lacnanta kugu dhacday weli ma noo shoori adiga ina sheegto ka baqa bari markaasuu yiri wixii xalay bahal meeshan togan iyo wuxuu howdkan bahal joogo kuma cunan miyaa weli ma nooshaa wuxuu isku day markii inuu naagtii wax soo qaato oo naagtii meesha ku dhameystiro wax xanuun badan oo qofkii dhameystir karo inuu meelaha ka fiirfiiriyo asagoo meelaha fiirfiiriyay ma suweyn oo som badan ay ilaahay meesha ugu diyaariyay naagtii inuu dhameystiro rabi asaga meeshii sunti bahalkii maskii ku qaniinay meeshii ku nafbaxay maskiina maxaa la yiraahdaa markuu ninkii dilay meeshii waa bisay tagaba ilaahay naagtan meesha ku ilaaliyahay inuu san dhameystirin ayadii uu inuu dhameystir u socday asaga ka hor dhinto meeshii ku dhintay waxaa dhacday markuu maskii qaniinay qayladii uu qayliyay ayaa waxaa maqleen dadkii gaariga asaga uu ku wado gaariga saarnaa dadka qayladii xanuunka badneed uu qayliyay soo raaceen meeshii shanqartii qayladii ka yeerisay imaadeen waxay u imaadeen ninka meeshan masku cuno maskina tagay naagtaana meesha jiifto oo dhiig bixiso labadooda soo qaadeen marka ayaga markaas ma aysan dareensaneyn ninkan uu dhintay labadooda soo qaadeen gaariga asaga uu wata labadooda la saaray markaas waxa la geeyay isbitaalka ugu dhawaana waa meeshii ay ka imaadeen ee u socota naagtan cunugeedii joogay isbitaalka la geeyay xarun booliis oo ku dhagan waa xarunta booliis naagtan ay u socota markii horeba irta ay wiilkeeda lacagta ay dhiibto wiilkeedana ay kala hadashay inuu soo celiyo isbitaalka la geeyay isbitaalka aroornimada la geeyay subaxii isbitaalka markii isbitaalka la geeyay naagtii la fiiriyay waxaa la dhahay maxaa la yiraahdaa naagtan weli waa ay nooshahay waa la badbaadin karaa ninkan laakiin maxaa la yiraahdaa masun badan ku soo aaday ugu dhintay ninkan qaraas oo dhamaatay qaybtii midka ninka la isaga daray naagtii marka xoogoo caafimaad iyo wax loo sameeyay naagtii markay ay miirkeedii mar labaad soo laabtay waxa lagu dhahay maxaa kugu dhacay meesha maxaa ku geeyay yaasaan ku gal markaas ay tiri nin waxaa jiray ninka meesha ila jooga ee maska qaniinay waxay tiri shalay galab soo saaray tiri gaariga oo gaarigiisa aan soo raacay qisadaas aan u raacay qisadii kaga sheekaysay inuu asaga meesha ka tuuray oo meeshii ay ku dhacday markii ay sii dhic meesha ku dhacdaan ogaal ugu dambeysay habeenkii ay soo meereysatay habeenkii oo dhan ay dhageysaysa shanqarta bahalada iyo masaska iyo waxa socda dhan xalay ay arkaysay ay dhageysaysa mugdiga ay meesha ay ku jirtay saak oo soo laabtay inuu hubay inay dhimatay inay nooshahay markuu arkan uu ku dhahay lacnada kugu dhacday weli ma nooshahay daab iyo wax uu naagtii uu ku dilay asagoo raadiyayna maskii meesha ku qaninay oo sheegtay markii waxay tiri ninkan lacagta guriga aan soo gaday aan rabay tiri inaan cunugan qaraamaadka dawladda ee ka rabta aan ka dhiibo cunugeyga aan soo cesho oo ii shaqeeyo wixii tir lacagta iga qaatay lacagta laga soo qaaday waxa la ninka uu dhintay laakiin lacagtaada waa laga raadiyaa ninkii markii midkiisa loo tagay lacagta jeebka ugu jirta lacagta ay sheegtay tiradeedii cadadeedii lacagta laga soo qaaday marka nimankan marka hore baarayeen oo dawladda u soo dirtay arintii maadaama dad ciidan ay ahaayeen ay baarayeen
waxay dhaheen okay wiilkaada magaciisa sheeg iyo meesha uu ku jiro wixii dhan markay sheegtay waaba meeshii ku dhignayd waa tageen oo wiilkeedii usoo wadeen lacagteedii oo sideedii ihna waa loo celiyay waxaa la lacagtaadii qaado waa ku tanaha wiilkaadina waa kanaha wado xikmadda ilaahay lacagteedii na waa loo soo celiyay wiilkeedina waa loo soo fasax ayadiina markay caafimaadday waxay ku soo laabatay gobolkeedii markay ku soo laabatay lacag fiican haystaan oo gurigii laga gaday marka waxay sameeyeen dukaankii qudaarta ee yaraa meeshan ku laabana dukaan weyn oo wiilkii yaraa furtay oo qudaar iyo waxaas oo ku gadayay dukaankii u kala kacay ilmihii waxbarashadoodii noloshoodii nolol qurux badan ay noqotay heer waxaa la gaaray 3 cunug aabo 3 cunug oo dhalay asaga ugu weynaa iyo ilmo kale aabiis dhalay ilmihii asaga la dhashay inuu asagii engineering oo ka baxay kulliyada engineering oo ka baxay daadii ku xigta caafimaad oo ka baxay daadii ku xigta oo ka sii baxay maxaa la yiraahdaa uu noqday maxaa la yiraahdaa taliye ciidan waliba sareeyo iyo waxaas iyo xilal waaweyn ciidankii oo ka qabtay ninkii wiilkii yaraa ee 18 jirka ah hooyadii safarka ee dartiis u gashay shilka ay ku galeysay wiilkaas waxa uu noqday gobolkii ay ku noolaayeen ee Ciraaq dadka ugu hantida badan noloshoodii ayuu ka mid noqday reerkeen waxay noqdeen reer noloshoodii baraare iyo barwaaqo ay gaartay oo ilaahay bulaalo badan uu gaarsiiyay laakiin wax yar oo stress iyo culays yar nolosha ah ay ku soo bilaabeen muuqaalkeena maanta intaas ku eegay haddii ay tahay markii kugu horeysa aan soo booqata subscribe noo saar gamalkana furo si video cusub ku soo gaaraan hadaa hore noo joogtaan like noo saar asxaabtaada u sii sheegay muuqaalkan aad u dheeraaday inaan laba ka dhigaan jeclaa laakiin aad u dheeraaday soo dhawaada